بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت بدن soo dhawaada waa mar kale iyo walaashiin Rawda Axmed oo idin wada muuqaal qurux badan ku soo dhawaada channelkayga. Hadaa ku cusub tahay subscribe saar, share dhe asxaabtaada la wadaag insha Allah. Waxaan sameysanaynaa rooti casriye ah ama soonka Ilaahay gaarsiiya af bilow ah ka dhiga kartid insha Allah. Koobkiisa qaxwadana waa kaasa. ما شاء الله walaalayaal soo dhawaada sidaan u sameeynayo ila arka insha Allah ila dhamaadkan ila daawada. Meeshaas waxa ku haystaa ukun, hal xabo ukun ku darsaday. Meeshaas leebita aan hore soo qasay waaye. Marka 10 daqiiqo meel ii taalay. Marka waa kaasa insha Allah ayadana waan ku darsan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo. Marka meeshaas hadda waxa saas iigu jirto xabad ukun ah iyo hal qaando oo leebita waaye. Marka waa kaasa 10 daqiiqo meel ii taalay. Waxa kale oo ku darsan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo. Meeshaas waxa kale oo iigu jiro sokor. Marka insha Allah 2 qaando sokor ah isticmaali doonaa. Maadaama hadhooti macaanka aan gadaalka isticmaalayo marka 2 qaando la ka dhiganayaa. Meeshaas kale waxa iigu jiro cusbo ama milix. Wax yariis ka isticmaalaa insha Allah. Intaas ku darsanayaa milixdana. Waxa kale oo ku darsanayaa wasku soo qasay waxa kale oo ku darsanayaa insha Allah caanaha siiti koobka siiti yariiska waa isagana marka haaf ugu darsanayaa hada haafkaas ku darsaday saliida siiti ku darsanaa insha Allah xoogaa iyadana ilaa hal qaando ama la ku darsanaa marka wasku soo qasayna insha Allah burki waxa ku darsanayaa waa kaasa 2 koob aan isticmaalaa iyo wixii kale oo u baahdo marka halkaas koob si qasanayna kabacdi gadaala koobka kale ugu darsanayaa waxa laga yaabaa inaan nus ama haaf kale gadaalka si isticmaalo insha Allah waa kana hadana haafka kale aan isticmaalayaa insha Allah waa kaas marka waa kaasa marka asxaabta kulligiisa saas ku soo dhameynaya ilaa si fiican ugu cajiimay insha Allah waa isku soo noqonaynaa waa kana markaana ma sha Allah si fiican u soo cajiimay waa kaasa soo softi u yahay ma sha Allah marka hadda waxa sameeynaa waa dabooleena ilaa uu nooga soo qamiira insha Allah markaas isku soo noqonaynaa waa kana walaalayaal markaas ka bacdigiis waa kana oo soo qamiiray waa ujeedaan ma sha Allah waa kaasa ma sha Allah si fiican marka hadda waa isdhex gelinayaa waa kana 2 gabal ka dhigtay hal cajiin meel la dhiganayaa rooti kala ka sameeynaa sina kana nooc kala ka sameeynaa insha Allah 2 nooc aan ka dhigayaa hadii Ilaahay ka dhigo marka waa kaasa kana saana u soo yareeyna rootiga farmaajaha oo korka loogu shubay caanaha macaanka ka dhiga kan ma sha Allah marka saasa ku soo wada kulligiis insha Allah waa kana walaalayaal farmaajadii dhaxda ka gelinaya kulligiis saasa ku soo waday kana u dambeeyay marka sidaas dhaxda ugu soo gelinayay dhamaantiis marka insha Allah waa kaasa sidaas ugu dhiga yariisa ka dhigaysaa si hadhooti halka xabad soo afka kugu gala xatee si yariisa ka dhigay ma sha Allah waa kaasa marka hadda meel la dhiganayna ilaa uu noogu soo fuuraayo ama ilaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo meel si dhigana kadib rooti kala sameeyna insha Allah waa kana marka hadda waa fidfidina insha Allah walaalayaal markaas soo duubay oo soo fiidiyo soo duuban waa kana halkaas xabaa ka dhigaya birta waxa ii marsan subagan soo mariye marka insha Allah asina waxa suganeena inta noogu soo qamiira ilaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo soo sugeena insha Allah ma sha Allah waa kana buu soo fuuray waa ujeedaan waxa soo sugay ilaa 15 daqiiqo iska soo dhiga meel marka hadda waa ujeedaan dush waxa ka marna caano
caano iyo wax yar saliid isku soo qaraacay waaye isku soo qasay. Marka insha Allah intaas hadda sameysana hadaa rabtid ukun ka dhigi kartaa, laakiin ani ukunta ma jecli. Caanahaas ka jeclahay sababtoo ah ukunta hadaa korka ka mariyo xoogaa guduud zaid oo noqonayo oo madoobaad camal ah. hadaa jeceshahay ukunta ka dhigi kartaa, laakiin caanahaas si qurux badan hadii aad rabtid inuu kugu soo baxo oo kalar aad u qurux badan, caanaha ka fiican ukunta. waa kaasa marka insha Allah kulligiis saas soo marina ka bacdigiis insha Allah. waxaa kaloo idin sheegayaa bahashan oo hadda rootiga aan ku dubayo waxaa loogu talagalay duulshaha ama rootiga slice-ka loogu talagalay. hadda marka kan rooti slice ma ahan, rooti kala waaye. waa kaas hadda waxaa siid madowga aan korka ugu daadinayo waxaa waa xabad soodo waaye, ama sisin waxaa rabtid ka dhigi kartaa, laakiin xabad soodadaas aan jeclaystay. marka insha Allah rootigaas asigan slice-ka waan soo gelin doonaa insha Allah. waa kaasa hadda rootiga ma aha kii slice-ka ma aha, rooti caadi ah waaye oo hal xabbe ah oo laba qofood camal cuni karto micnihi. marka insha Allah waa kaasa waa ujeedaan. marka hadda foornada geyneynaa, kan kaleetana waa arkeena asine. waa kana rootiga kaleeta asine saasoo noogu soo fuuray asigana 15 daqiiqo soo sugay. caanihii le korka ka marina asine. ka bacdina foornadan geyn doonaa, waa ila arkeysiin insha Allah. meelahaas hadda banaan way isbuuxinay marka foornada geliyo insha Allah. waa kaasa asxaabey ka faa'iideysi wacan wanaagsan insha Allah. codkayga hadaa si kale oo inii soo gaaro in xoogaa waa iska hergebsanahay. codka marka saas waaye insha Allah. la isku soo duceeyo asxaabta. waa kana walaalayaal maasha Allah sidaas uu ku soo baxay quruxda badan, kalarkaas aadka u quruxda badan uu ku soo baxay waa ujeedaan maasha Allah. marka hadda kadib waxaa ku darsaneynaa caanihii macaana ama condensed milk ama caanaha sweet milk ku qoran. insha Allah marka walaalayaal waa ujeedaan hadda caanahaas ku soo shubaya insha Allah. waa isku soo noqon doonaa hadii Ilaahay ka dhigo. marka insha Allah walaalayaal ka soo faa'iideysta idinkana. waa kaasa sidaas quruxda badan uu ku soo baxay maasha Allah. indhaha deeqaya ku dhahay maasha Allah. waa ujeedaan quruxdaas la rabaa inuu ku soo baxo, kalarkaas siiti maasha Allah aad iyo aad u qurux badan yahay. marka insha Allah asxaabteyda sharafta badan waxaan rajeynayaa in aad iyo aad uga faa'iideysan doontaan. waa kana saddexdaas siiti xabaa meesha soo saartay iyo koobka qaxwada sokor la'aanta ah. marka insha Allah walaalayaal sidaas ugu soo faa'iideysta. waa kaasa kii kalena waa kana asigana quruxdaas ku soo baxay maasha Allah. waa kana kan waxaa rabtid ku cuni kartaa, waa ujeedaan saas oo la rabaa inuu noqdo. jilaac waaye aad u jilicsan yahay maasha Allah. dhuunta xatii makaaga dhigaayo. marka insha Allah asxaabey waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin, share garay doontiin insha Allah. like-tana ka hilmaamin. marka insha Allah isku soo noqod wacan wanaagsan fiidiyoga xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.